السلام عليكم مركله waxa ku soo dhawaataan fikradii faalo fikradda maanta aan rabo in aan idinla wadaago waa fikrad ku saabsan arrimaha siyaasadda haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed siyaasadda aad baan u jecelnahay sabaha aan isleeyahay waan u jecelnahayna waxaan isleeyahay marka aad fiiriso taariikhda bulshada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed siyaasadda dib weyn ayaa naga soo maray taraamo badan ayaan ku leenahay marka aad fiirisid hadda 30 sano oo soo dhaafay oo wali dawlad adag aysan ka dhalan Soomaaliya marka aad dib u laabatid oo dawladii kacaanka aad fiirisid iyo dhibaatadii faraha badnaa ay mantaqaan dadka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ay kala kulmeen marka si fiirisid oo 10 sano oo lagu jiray dawladda Talyaaniga ee dawladnimadeena gacanta ku haysay oo maxkamiyadda lagu jiray iyadana siyaasad fara badan dhibaato fara badan ayaa siyaasadda ka soo marnay 10 ilaa iyo 10 sano oo markaa ku xigay oo kacaanku intuusan qabsan 9 sano ilaa 1969 dawladihii Soomaaliya soo maray oo markaas waxa weeye isbedelkooda aad u badnaa marka stable aysan noqon ka hor marka taariikh dib u sii raacdid Soomaaliya oo yaani taariikh adag oo xagga siyaasadda aysan lahayn iyo dawladnimada marka isku soo wada duubtid waxa isdhihi kartaa 30 sano ama ka yar ay Soomaaliya dawlad ahayd marka siyaasaddeena wax badan ka baran waa loo baahan yahay fikradda maanta aan rabo inaan idila wadaago waxa la yiraahdaa participatory governance marka waxay ka imaatay fikradda ah dawlad loo wada dhan yahay ama maamul loo wada dhan yahay siyaasaddu waxay ku macaan tahay ama qof walba ee ku soo jiidanaysa qof walba markuu iska dhex arki karo codkiisa markuu ka dhex arki karo muuqaalkiisa markuu ka dhex arki karo marka participatory governance macnaha waxa weeye go'aanka laga gaarayo markaas siyaasadda waa in dadka oo dhan ay inclusive u yihiin ama ay ku dhex jiraan ayaa loo baahan yahay waa in marka go'aanka uu ku yimaado wada shaqeyn ama collaboration uu ku yimaado waa in marka qof walba oo markaas stakeholder ka ah ama saamileyda siyaasadda ka ah in marka lagu soo daro oo taladiisa yaani uu iska dhex arko marka noocaas oo kale markay u dhacdo siyaasadda waxay noqonaysaa siyaasad loo wada dhan yahay qof walbana uu ku faraxsan yahay yaani go'aan lagu wada qanacsan yahay hadduusan xataa 100% uusan ahayn tan marka waxay ka duwan tahay siyaasadda bulshada Soomaaliyeed ay ku soo dhex jirtay ama 30 sano hadda la soo dhaafay ama markii ka horeyso dawladda kacaanka saan soo sheegnay iyo 10 sano ka sii horeeyay oo dawladda shibilka iyo 10 sano ka sii horeeyay oo Talyaanigu dawladdu gacanta ku haysay dawladnimadeena iyo xilliga xataa gumeysiga kulli saas ma ahayn marar qaar kood waxaan leedahay bulshada Soomaaliyeed waa bulsho yaani in la isku yimaado oo go'aan loo wada dhan yahay la gaaro waa yaani uma sameysna laakiin waa wax la isbari karo marka dawladnimada macaankeeda wuxuu ku jiraa ama siyaasadda wadaag macaankeeda wuxuu ku jiraa in la helo participatory governance in la helo ayuu ku jiraa marka aragtida maanta aan rabo inaan la wadaago taas weeye waxaan jeclahay qof walba oo markaasi arrimaha siyaasadda ku dhex jira in uu insha Allah ta'ala wuxuu ka faa'iidayo barnaamijka maanta video isgaarsiya wixii falanqeyn ah wixii su'aalo waa dhiniciina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.